كغنيمة عافماتكاغا عافماتك ونعمة إلهي بابحيا عافماتك وحا قدال مري دونا ماركتاني حنون با قداشي سئيمان دونا حياتك قبل موتك أبو نبي عليه الصلاة والسلام انت نوشهي أنا دمنن نولشوا فرصتك سو مرتي كفائدي سايدنا شنتاس النبي قلنا ليه كغنيميستا وكفائديسو ووحدين تادا وحترى يكو قبصو وحاخرة هذا وحكترى ينكا قبصو دلنيرنمدو نبي كو بلابا دلنيرنمدو وفرصة إن سو مريسا هذا مر فرصة داسي أي كو دافتو وما سو نقطو يكو سو نقوني ميسو انت وقفو دلنيرد او يحي غاجنا كما عبسدو دمشنا كما عبسدو hurdadu hadday ku yaraatana uma joojiyo hurdadu cunadu hadday ku yaraatana uma joojiyo u adkaystaa marka dhalinyarnimadu waa fursadina soo maraysa inaan fursadda ka faa'iideysano oo ilaahay taacadiisa uga faa'iideysano ayaa diinteena macaanina faraysa todobada ilaahay azza wa jalla u harayn doono maalinta harka alla mooyaane harka la uusan jirinna waxa kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam شاب نشأ في عبادة الله عز وجل نكدل يردا إدل يرنمدي سكبر بار إلهي طاعد ديسا مالك هوسك إلهي أجر هوسك لا أسنجرين كو إلهي هوسك سهوس جوكسنا يكمل نقول دونا برسول خيري دل يرنمد وفرصة كسوم رئيسا كغني ميسو بريت ولا ويكون دافي هذا يكون دافتنا كوسو نغني ميسي أجو دفر بدن برمان تتدبات سيدة تنجر مركي جارين waxay ku calaacalayaan ay leeyihiin way dhalinyarnimadeedii ayaa mar unigu celiya ha ka qaniimeysto ilaahay ha soo caabudo si fiican ilaahay hanu raali galiye dadkii dhalinyarnimadooda ilaahay ku adeecayna quraanku si gaar ah u amaanay ayaa kamida ashaabul kahf ba kamida ashaabul kahf innahum fityatun aamanu bi rabbihim وزدناهم هدى بإلهي دلنيرا أي هايين ربي قد بي آمنين الروميين أنا كنا هنون بانو زيادين بإلهي وأذكتها يحل دلنير لماذا إنك دلنيرا دو إنه الشهوات كالنفتي سيتوكسوا حرم ومساجد كي مادا وصلاة جمع وكو إلاليا ودينتي صبرتا ودينتا كو عمل فلا ودينتا إلهي كشغايا وأذكتها لذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام تضبط إلى هاي وحدين ينا واحد لبض نمبر كلبان للشيء إنه يهنيك دل يرد دل يرمدي سيلاها كو أضاعي أصحاب الكهف دل يرى يهاين واحد لقو أمانين دل يرى يهاين سورة القرآن كأقو عجائب كبدن أفرت بنا آذان كفد نيساء كجرت قصد دودو أيا إلى هاي يكنا تاريخ دودو كقور رمي يرى موسى والذين كرك سارنا موسى ده يرى موسى نبيك صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بإلهي ولبدل يرى أصحاب الكهف تاريخ ذمرك علماء كور رمان دد فقراء ما وحي كسو جيدين دد مالقبين كسو جيدين بالليل إلهي بي آمنين وإسلام نمدي بي قاتين دد نبقر كيبا أوغادي قال كاها لبا مدبو مركا أوبان ديغي يقول كالا دورتا إن الدين تيني كسو نقطان ودين تاسي محاي هاي إن إساقا ديبو عابدان إيما ركتانا إن انتو الله صوقبتو geed intoo lagu xidho dhagaxtuur lagu wada dilo waxay ka doorbideen dalka dhanba inay uga tagaan dalka iyo diinta waxay doorbideen inay diinta helaan oo dalkooda ay waayaan dadkooda iyo diintoodana waxay ka doorbideen diinta inay helaan ay diin la dhintaan bay ka doorbideen oo dadkooda ay waayaan noloshoodii iyo maaragtaane diintoodana noloshii waxay ka doorbideen diintoodii bay ka doorbideen لأن مرقاسا قرآن كإلهي كقوى الرمو إلهي ويري ويلال يرير بيهايان ماركتاني ومحي هلان إلهي بي آمنين وربي قد بي آمنين بإلهي يري أنا كنا هنون بانو زيادين بإلهي يري
ninka dhallinyarada ee dhallinyarnimadiisa ilaahay ku adeeca ee waxa naftiisu ay jeceshahay ka soo hadha ee ilaahay rasuulkiisa raalli geliya ilaahayna waa ku farxaa nabiguna uu ku farxaa calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulkana radiyallahu canhum badankoodu dhallinyaray u badnaayeen baa layidhi dhallinyaro oo dhallinyarada nebiga ilaahay ugu gargaaray caza wajalla muscab bin cumayr baa ka mid ahaa dhallinyaradii ragga yaraanta ku islaamay muscab markaasaa qoys weliba wuxuu muscab uu ka dhashay hantiilayaal ah deedna qoyskii dhaqaalaha badnaa uu ka dhashay wuxuu ka doorbiday inuu ilaahay aaminuu nebiga raaca calayhi salaatu wasalaam deedna markaasuu nebiga u iman jiro nebiga agtiisuu diinta ka baran jiray markay reer madiina soo islaameen ayay nebiga weydiisteen maaragtaane cid lagu daro oo diinta iyo qur-aanka sii barta deedna markaa nebigu muscab buu yidhi or adigu sii raac muscab waa safiirkii ugu horreeyey islaamku uu dirta baa la yidhi magaalada madiinu muscab soo gaadhay ayadoo dadka muslimiintu ay faraku-tiris ay yihiin masaajidna magaalada madiina ma leh madarasad ama dugsi diinta ama jaamacad diinta lagu bartana ma leh walaakiin muscab bin cumayr geed hoostii intuu u fadhiistay ansaar ayuu halkaa maaragtaane diinta ayuu dadka ku baraayay oo intuu baraayay intii nebigeenna uu ka soo maqlay buu ummadda ku anfacayay dacwadda sheegiddeeda iyo diinta sheegiddeedu culummada keliya kuma xidhno culummada keliya maaragtaane lagama rabo ogow qof kasta oo muslim waa shahaadanaya inta uu yaqaano diinta inuu ummadda ku anfaca looga fadhiyaa intaa taqaano intaad culummada ka maqashay ummadda gaadhsii muscab bin cumayr radiyallahu canhu intii nebigeenna uu ka soo maqlay ayuu muscab magaalada madiina uu ku anfacay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaalada madiina aanan soo gaadhin aqal ma jirin magaalada madiina ilaa qoys walba diintu muscab bin cumar uu dhex dhigay baa layidhi qoys walba diintu way gashay waa nin dhallinyaro ah oo muddo yaroo kooban nebi maxamed la soo joogay calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii nebiga ku soo degaayay maaragtaane soo qabtay oo soo xifdiyey oo akhlaaqdii nebigeenna intuu soo koobiyeeyey deedna magaalada madiina la yimiday markaa ma jiro aqal magaalada madiina ku yaalla ama qoys ilaa muscab bin cumar diinta uu geliyey baa layidhi iyadoo nebiguna soo gaadhin madiina dhallinyaradu mujtamac dhan bay bedilayeen waddanno dhan bay bedilayeen innaga maanta dhallinyaradeenni iyakaa la bedilay ayagoo dhul gaalana aanan tegin oo dhul islaama jooga ayaa maanta dhallinyaradeenni la qallibo la bedelo madaxay ku socdaan madaxa dhallinyarnimadu waa fursad ku soo maraysa ama taariikh xun bay adduunka kaaga reebi ama taariikh wanaagsan bay adduunka kaaga reebi maxaad ku qabatay dhallinyarnimadaadii adu bal maanta xisaabtan maxaad ku qabatay naftaada ma ku anfacday ehelkaada ma ku anfacday jaarkaaga ma ku anfacday dalkaaga iyo ummaddaada ma ku anfacday mise dhaqan dad kale ay aaminsan yihiin ayaad aamintoo lagaa dhaadhiciyey shaashadaa yaree moobeelkay dhallinyaradeennu dhaqanka ay ka arkaan ayaa maanta noloshoodii bedilay walaalayaal oo dharkoodii bedilo timahoogii bedilay muscab bin cumayr radiyallahu canhu magaalada madiina intuu tegay buu bedilay isagu markuu nebigu madiine soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam waad ogeydeen reer madiina siday nebiga u soo dhoweeyeen maalin maalmaha ka mid a cali bin abi aalib iyo nebigu